السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسينا maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa sida loo sameeyo loogada. Logo macnaheedu waxaan uga jeedaa tusaale ahaan sida kan oo kale. Simple. Waa sawirkan oo kale. Sawirka loogada sax aragtaan iyo ku fadhiya calaamada yar iyo qaabkaad ugu qori lahayd oo badanaaba dadka leh kanaalada iyo isla markaana YouTube-ka ku dhaxla akoonka ay sharaxyada ku soo gudbiya sida konkeena cabshukur channel oo kale loogu sameeyo loogadan tusaale ahaan iyo sidoo kale inoogu jirta loogada waa tabartanka muuqata sawirka halka inooga muuqda waa loogadii website-keena ka muuqda muxtarif.blogspot.com isla markaasna waxa intaanaynu darsiga hore u sii gelin waxaan idinku baraarujinayaa in kanaalkeena aad kala socon karto wax kasta oo cusub isla markaana Facebook-ana aad like gareyn karto oo share gareyn karto halkan aad ka share gareyn karto wax kasta cusubna aad kala xiriiri doonto muxtarif.blogspot.com aad kala xiriiri doonto insha Allah halka aad ka soo download gareyn doonto software-kan isticmaalna dabcan logo 2010 waa software-ka isticmaali doono isla website-keenan ayaad ka soo download gareyn doonto aan ku dhigay linkiga aad ka soo download gareynayso linkigana sidoo kale waxaad ka helaysaa videoga hoostiisa si fudud waxaynu gudbaynaa imika sidii aynu barnaamijka looga ugu sameyn lahayn laba shay aynu sameynaa intaynu loogada sameeyno mid weeyaan barnaamijka waxa ku jira loogooyin diyaar ah ayaa ku jira marka loogooyinka diyaarka hal ka mid ah aynu isticmaali doonaa marna mid gaar ah cusub oo inagu iska leenay aynu sameyn doonaa wata koobaade sida aad halkan waxaad ka muuqataa loogooyin fara badan baa kaaga muuqda tusaale ahaan loogadii shaashada screen-ka inooga muuqatay sawirka halka inoo yaala waa loogada tick aan ku sameynay marka loogadan waad edit gareyn kartaa dib baad u habeyn kartaa oo u bedbedeli kartaa adoo sameynaya tusaale ahaan sidan aynu sameynno kale tusaale ahaan tick halka tick ku qorantay ay dhamal kali gareynaysa halkan maxaa kaaga muuqda tick ay kaaga muuqata bartana text baad ku dhufanaysaa halka text line-ka ay ku qorantay ayaad masaxaysaa kadib waxaad ku qoraysaa tusaale ahaan muxtarif eed ku qoraysaa okay halkan ka hoose font size-ka soo yaree dabcan waan yar boobsiinaysa waqtigu inoogu save garoobo marka adigu ila soco haye waxaad sameyn karaysaa inta marka tiraado color-ka halkan waad ka bedeli karaysaa nooca doonto waad ka dhigi karaysaa laakiin saanigu madowga ayaan jeclay okay inta markaynu sameynay magacii ka bedelay size-kii bedelay color-kiina aad soo bedelato okay baad siinaysaa kadib muxtarif mar kale aad kusoo dhufanaysaa waad soo yar jiidaysaa meesha doonta dhigaysaa tusaale ahaan bartaasaan dhigna qoraalkan kale isaga ma edit gareyn karaa waad edit gareyn karaysaa mar baad kusoo dhufanaysaa isagana halkan uu kaaga muuqan doonaa dabcan text baad oranaysaa kadib isagana halkan ayaa tagaysaa text line sidii kii hore oo kale waxaad ku soo qoraysaa waxa doonto tusaale ahaan anigu waxaan ku qorayaa cabshukur channel baan ku qorayaa fartama bedeli karaa nooceeda waad bedeli kartaa tan oo kale soo dooran kartaa tusaale ahaan anigu si aan kii hore ula mid dhigo aan soo doorto fartii hore kii hore igu taalay oo kale okay cabshukur channel okay waad weyneyn kartaa waana yareyn kartaa fartan halkan aad ka weyneyn bartaas aad jiidaysaa tusaale ahaan saan yiraahdo ma rabo inay aad si weyneeto saasoo kale aan ku daynaya sawirkii kale waa kan imika loogadan waa looga diyaar ah ay ahayd aynu edit gareyno wax ka bedbedelay oo kale magacaaga ku qori kartaa website-ka ku qori kartaa wax kasta kadib waa save gareynaysaa sidaad save gareynaysaa file baad tagaysaa save logo image baad oranaysaa kadib bartan size image-ka ay ku qoran tahay waxaad dooranaysaa png 24 bit file kaas oo ka ugu sareeya mar walba intan kalena sideed kaga tagaysaa continue ayaad oranaysaa halka doontaad ku save gareynaysaa tusaale ahaan desktop-ka aan dhigno kadib aynu bixino logo tick ayaan u bixinayaa tusaale ahaan save waana save gareynaya halkan waxaad ka arki doontaa logo tick waa ka loogada aynu sameynay okay taas waa mid
waxaynu u gudbaynaa loogadan waxay ahayd looga diyaar ah laakiinse mid inagu aynu iska leenay oo inoo gaara ayaynu imika samaynaa waxaan tegaynaa file waxaynu oranaa new blank project cusub kan hore ayaynu leeyahay mar rabtaa inaad save garayso noo baan oranayaa hadda ayaynu bilaabaynaa looga cusub halkan waad aragtaa waxaa kuugu jira iconskii aad ka samayn lahayd loogada cusub baa kuugu jira iconskii aad ka samayn lahayd ayaa kuugu jira marka ay la soco waan boobsiinayaa looga cusub baan samaynayaa sax baan soo qaadaday waan yara weyneynayaa si yara weyneynayaa halkanaan soo dhigayaa okay image baan tegayaa kalarkiisaan soo dooranayaa aan soo jiidayaa noocaasaan ka dhigayaa okay waxaan oranayaa okay baan oranayaa waxaan soo dooranayaa haddana icon kale looga kalaan samaysanayaa oh sorry kan aynu samaynay kii hore iska ka masaxay marka waxaad samaynaysaa kan aynu imika samaynay halkaasaan soo dhigayaa kadib waxaan samaynayaa file baan tegayaa waxaan ujeedaa object baan tegayaa new text baan dooranayaa textigaa cusubna waxaan ka dhigayaa tusaale ahaan muxtarif ayaan ka dhigayaa okay kalarkiisa waxaan kasoo dhigayaa kii hore kalean kasoo dhigayaa okay sizekiisa waan soo yaraynayaa intaasaan ka dhigayaa kadibna okay baan leeyahay waan soo qaadaya halkan aan soo dhiganayaa waxaan sameynayaa saxaasaan soo qaadanayaa saxaasaan rabaa inaan halkan soo dhigo waan weyneynayaa waan soo yara weyneynayaa kadibna waan soo qaadayaa halkaas ayaan dhigayaa muxtarifna dhinaciisana ayaan soo dhigayaa okay dabcan anigu imika waan boobsiinayaa waqtiga ayaan inoo save garaynayaa adigu waxaad samayn doontaa loogo aada u qurux badan baad soo samayn doontaa markaad dhammayso loogo qurux badan baad samayn doontaa kana waan yaraynayaa soo qaadayaa muxtarifna dib u soo dhig tusaale ahaan baalkaa yarnay soo qaad halkan yar soo dhig okay loogada noocaas oo kale sameeyay background waad samayn kartaa haddii aad doonto color waad samayn karaysaa waxaad tegaysaa halkan waxaad tegaysaa edit baad tegaysaa kadibna background color edit background colorka kalaro badan baa bartan kaaga soo baxaya tusaalehaan kanoo kale waad ka dhigi kartaa laakiinse si uu muuqdo waxaan ka dhigayaa bluegaasaan ka dhigayaa tusaalaha background color noocaasaad ka dhigi kartaa okay baad oranaysaa adigu haddii aad dadaasho anigu waxaan badanaa imika waxaan wadaa waqtiga ayaan doonayaa inuu inoo soo gaabto haddii aad ku dadaasho waxaad samayn karaysaa loogooyin aada u qurux badan haddii kalena loogooyinka meesha kugu jira ayaad mid kamid a dooran doontaa kadibna edit garayn doontaa file baad tegaysaa si aad u save garayso save logo ayaad oranaysaa sidii markii horeba waxaad dooranaysaa kaa ugu sarreeya oo bng 24 bit ah kadibna continue baad oranaysaa waa meesha doontaad ku save garaynaysaa magaca doontana waad u bixinaysaa safena waad oranaysaa idan waxaan filayaa inaad si wanaagsan uga faa'iideysateen casharkan waa walaalkiin cabdishakuur maxamed cabdilaahi oo markasta idinla diyaara duruus cusub mar labaadna aan idin ogeysiiye muxtarif.blogspot.com website-keenan waxaad ka helaysaa wax kasta oo la xidhiidha ama casharada aan sharax ka bixinayo sida kuwa halkan idinka muuqdo oo kale isla markaasna waxaad page-keena ayaad halkan ka like garayn kartaa ama aad share garayn kartaa asxaabtaada sida aad arkayso in asxaabta halkan ee like garaysay oo kale isla markaasina waxaad follow garaysaa oo soo subscribe garaysaa kanaalka aynu YouTube-ka ku leeyahay darsigeena halkaas inoogu dhamaaday wassalaamu calaykum